kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo qaadaya tallaabo culus. maxaa ka jira in Ra'iisul Wasaaruhu uu xilalka ka qaadayo qaar kamid ah taliyayaasha ciidanka si heshiis buuxa looga gaaro arrimaha ammaanka. ciidamadii militariga badbaado qaran oo mar kale ku dhawaaqay inaysan raalli ka ahayn joogitaanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Villa Soomaaliya. maxay ciidankaasi ka aaminsan yihiin madaxweyne Farmaajo? waxaan idiin soo gudbin doonaa Muuse Suudi oo si adag uga hadlay arrimahaasi. wararkeena kalena waxaa kamid ah Jubbaland oo ku dhawaaqday inay ka qayb galayso shirka uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaare Rooble, balse ku xirtay shuruud ku adkaan doonta Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka iyo qabsoomidda shirka. maxay tahay shuruudaasi? waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo fariin adag soo saaray. wararkii ugu dambeeyay kulamada uu magaalada Muqdisho ka wado ergeyga ay Qatar u soo dirtay Soomaaliya. maxaa ka soo baxay kulan uu la qaatay madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Hirshabelle. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dowladda Ethiopia. haddaba maxay ahayd fariintii uu danjirahan cusub ka siday dowladdiisa Ethiopia? iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dib ugu soo laabtay Muqdisho. maxaase ka jira in uu Muqdisho u yimid lafta gareen la kulanka ergeyga Qatar ay u soo dirtay Soomaaliya? qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana habeen Isniina 3 bisha shanaad ee May sanadka 2021. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada. mahadsanidin. aynu ku bilowno wararkeena. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa la sheegayaa in uu qaadayo markaan tallaabo culus tan iyo markii lagu wareejiyay arrimaha doorashooyinka iyo waliba sidoo kale amniga guud ee qaranka. wararkan helayno ayaa waxay sheegayaan in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu qaadayo markaan tallaabo culus isla markaana uu xilalka ka qaadayo qaar kamid ah taliyayaasha ciidanka ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya. taliyayaasha uu ciidanka ka qaadayo ee Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Xijaar iyo waliba sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji. labadaasi taliya ayaa si weyn ugu dhow madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana horay arrimahaasi iyo in xilalka laga qaado taliyayaashaasi u dalbaday mucaaradka iyo maamul goboleedyada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa haddii uu qaado tallaabadani isla markaana uu xilalka ka qaado qaar kamid ah taliyayaasha saluuga badan ay ka muujinayaan mucaaradka, waxa ay noqonaysaa in heshiis buuxa laga gaaro arrimaha ammaanka oo ay si weyn uga cabanayaan qaar kamid ah dowlad goboleedyada iyo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxa uu noqonayaa go'aankii ugu cuslaa ee uu qaato Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble kadib markii lagu wareejiyay arrimaha ammaanka iyo waliba sidoo kale maamulidda doorashada dalka uu galayo sanadkan 2021. waxaa sidoo kale soo baxay warar sheegaya in Ra'iisul Wasaaruhu uu qorsheynayo in ciidamada ku sugan magaalada Muqdisho laga saaro. dhinaca kale ciidamadii militariga badbaado qaran ayaa mar kale waxay ku dhawaaqeen inaysan raalli ka ahayn joogitaanka madaxweynaha ee Villa Soomaaliya. waxa ay sheegeen in madaxweynaha ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka qabaan walaac badan oo ku saabsan in uu kala dhantaalo amaba uu kala dilo marka ay xeryahooda dib ugu laabtaan. ciidamadan ayaa waxay si cad u sheegeen in aysan marnaba ogolaan doonin inay ka baxaan magaalada caasimadda ee Muqdisho inta heshiis buuxa oo rasmi ah laga gaarayo arrimaha doorashooyinka isla markaana dalka doorasho uu u jihaysanayo. Senator Muuse Suudi Yalaxow oo kamid ah siyaasiyiinta sida weyn arrimahan uga shaqeynaya isla marhaantaana ciidamo fara badan ku haysta isgoyska Mirinaayada oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu si adag uga hadlay arrintaasi. waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisii uu dhamaaday isla markaana wax sharciyada uusan ku fadhinin isla markaana loo baahan yahay inuu isaga guuro Villa Soomaaliya. waxa uu sheegay Senator Muuse Suudi in looga baahan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya in uu dago guri ijaar ah oo ka madax bannaan Villa Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay maadaama muddaxileedkiisii uu dhamaaday sida uu ku doodayo Senator Muuse Suudi. waxa uu sheegay Muuse Suudi inaysan Muqdisho ka bixi doonin ciidamadan oo uu sheegay inay ilaalinayaan dastuurka iyo qaranka Soomaaliyeed.
waxa uu dhinaca kale tilmaamay in loo baahan yahay in madaxweynuhu uu qoro warqad uu ku xadidayo dhammaan awoodihiisa. si kastaba ma jirto ififaalo muujinaysa in ciidamadan badbaado qaran ee militariga ah ay iyagu isaga bixi doonaan magaalada caasimadda Muqdisho, inkastoo ra'iisul wasaaraha dalka uu 3 jeer ka dalbaday ciidankaas in ay magaalada isaga baxaan. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaa la socotaan. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in ay ka qayb gali doonaan shirka uu iclaamiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaasi oo uu 20ka bishan isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo BBC-da la hadlay ayaa ku baaqay in la isu tanaasulo danta shacabka Soomaaliyeedna la eego, isla markaana ra'iisul wasaaraha looga baahan yahay in uu xal u helo arrimihii lagu muransanaa. madaxweynaha waa madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi waxa uu ka codsaday ra'iisul wasaare Rooble in xalka la raadinayo uu ku daro sidii gobolka Gado looga saari lahaa ciidamada uu sheegay in ay ku milmeen siyaasadda, sidoo kalena laga wada hadlo afduubkii loo geystay madaxdii Jubbaland ee gobolka Gado oo uu ku tilmaamay in si xoog ah Muqdisho looga dejiyay. haddaba arrintan ku saabsan in ciidamada laga saaro gobolka Gado ayaa waxay ku adkaan doontaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha oo arrimahaasi isagu lagu xil wareejiyay iyo inuu qabsoomo shirka arrimaha doorashooyinka. mar wax laga weydiiyay inay Jubbaland shuruud ku xirayso ka qaybgalka shirka uu iclaamiyay ra'iisul wasaare Rooble ayuu sheegay inaysan wax shuruud ku xiri doonin, balse waxa uu tilmaamay inay jiraan caqabado dhowr ah oo muddo hortaagnaa inuu hirgalo heshiiskii 17 Sebtembar, taasina looga wada hadli doono miiska wada hadalka, isagoo rajo ka muujiyay in xalka madambeysa la gaari doono. ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo la weydiiyay in madaxweyne Axmed Madoobe uu Muqdisho la tagi doono ciidamadii uu markii hore la tagi jiray iyo haddii uu hadda ku kalsoonaan doono ra'iisul wasaare Rooble, ayaa uga jawaabay in ilaalinta qofka mas'uulka ah aysan ku xirnayn amni iyo amni darro, balse ay iyaga ay ka go'an tahay in ay tagaan shirkaasi isla markaana ay ka qayb galaan sida ugu macquulsanna xal looga gaaro arrimaha la isku hayo. haddii aynu fiirino wararkii ugu dambeeyay kulamada siyaasadeed ee uu Muqdisho ka wado ergeyga Qatar ee u soo dirtay Soomaaliya, ergeyga dowladda Qatar ee u soo dirtay Soomaaliya ninka la yiraahdo Al-Qahtani ayaa waxa uu shir gaar ah maanta la qaatay madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle. Dr. Al-Qahtani oo madaxweynayaasha kula kulmay hotelka Dikaale ee gudaha garoonka Aadan Cadde ayaa waxa uu kala hadlay khilaafka doorashada iyo ismarwaaga siyaasadeed ee kol hore isku rogay markaasi dagaal. ergeyga ayaa qoorqoor iyo Guudlaawe u biyaamiyay doorka ay Qatar ka qaadanayso xal u helidda qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay muranka doorashooyinka sida aan xogaha ku helayno. labada madaxweyne ee dhawaan ka hor yimid muddo kororsigii uu laalay golaha shacabka ayaa waxay hore u taabacsanayeen madaxweynaha dowladda federaalka, walow ay ku kala aragti fogaadeen muddo kororsiga uu dagaalku ka dhashay. kulamadan ayaa qayb ka ah kuwa uu ergeyga gaarka ah ee Qatar la qaadanayo madaxda Soomaalida, iyadoo labadii maalin ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho kula shiray ra'iisul wasaaraha madaxweynaha guddoonka golaha shacabka iyo waliba sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ah. dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ay bilowday Qatar ayaa ku soo aadaya xilli lagu wado in dhowaan dib loo bilaabo wada hadaladii doorashada ee u dhaxeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada, kuwaasi oo marar badan fashilmay. waa hagaag haatanna haddii aynu fiirino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waraaqaha aqoonsiga danjirinimo waxa uu ka gudoomay danjiraha cusub ee dalka Ethiopia u qaabilsan Soomaaliya Cabdulfataax Cabdullaahi Xasan. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale danjiraha ka gudoomay fariin iyo salaan uu uga siday madaxweynaha dalka Ethiopia, wuxuuna madaxweynaha Soomaaliya uga warbixiyay Cabdifataax guulo wax ku ool ah oo ay gaartay dowladdiisa sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay fila Soomaaliya. danjiraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia mudane Cabdulfataax Cabdullaahi Xasan oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu uga siday madaxweynaha dalka Ethiopia ayaa uga mahad celiyay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay ee madaxtooyada Soomaaliya. danjira Cabdulfataax Cabdullaahi ayaa isaguna dhankiisa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay adkeynta xiriirka labada dal ee ku dhisan iskaashi iyo is-ixtiraam, waxa uuna muujiyay ahmiyadda ay leedahay dhowrista madax bannaanida labada dal. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyntiina waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay in ay ka miro dhaliso
ee xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhisan iskaashi daris wanaag iyo waxwada qabsi iyada oo xoogga la saarayo in kor loo qaado heerka nololeed iyo dhaqaale ee markaasi shucuubta geeska Afrika. maahan markii ugu horeysay ee madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya uu waraaqaha danjiranimo ka gudoomo safiir dal kale xilli la sheegayo in markaasi madaxweynaha uu iminka wado qorshayaal kale oo uu ka damacsan yahay safiirada loo soo magacaabayo Soomaaliya. ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. ujeedka uu u soo laabtay ama Muqdisho uu u soo gaaray maanta ee Laftagareen ayaa waxa lagu sheegay in ay tahay in uu kulan la qaato ergeyga dowladda Qatar ee u soo dirtay Soomaaliya Al-Qahtani, kaasi oo isagu kulamo la qaatay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo ugu dambeeyeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug iyo sidoo kale Hirshabelle. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.